Facebook, Google, Intel, CNN, Dell, Starbucks, wakaaladda wararka ee Reuters iyo BBC. Waxaa hubaal ah in magacyadani ay yihiin shirkado iyo wakaalado badankeen carruur iyo ciroolaba aynu garanayno inay yihiin kuwa ugu saamaynta badan adduunka maanta. laakiin haddii aan su'aal ku weydiiyo daawade, maxaad isdhihi kartaa way ka midaysan yihiin shirkadahani marka laga yimaado saameyntooda? Adiga oo aan meel dheer ka raadin jawaabta ayaa noqonaysa in dad kale ay yihiin Yahuud. waxay ka mid yihiin dadyowga laga tirada badan yahay, tiradoodu ma dhaafsiisna 14 milyan iyo 700,000 oo qof. haddana sidaasi oo ay tahay, waxay gacanta ku hayaan dhaqaalaha, warbaahinta, dhammaan baraha bulsho ee aynu adeegsanno, iyo sidoo kale samaynta filimaanta adduunka. haddaba maxay yihiin Yahuuddu? xaggee ka soo jeedaan? intee la eg tahay saameyntoodu? sidee ku awoodeen in iyaga oo 12 milyan ah ay yeeshaan awooddan intan la eg? magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Bari Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaal aynu ku lafagurayno qowmiyadda loo yaqaano Yahuudda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaynan u gelin muuqaalkeenna, haddii aad nagu cusub tahay, ha ilaawin inaad nagu soo biirtid oo aad taabatid calaamadda subscribe, sidoo kalena aad shidatid gambaleylka si ay ku soo gaaraan dhammaan muuqaaladeennu isla goorta aynu soo gelinno. haddii uu ku qanciyo muuqaalkuna, ha ilaawin inaad leeg saartid lana wadaagtid asxaabtaada. mahadsanidin. aynu u galno muuqaalkeenna maanta. intaynan ka hadlin saamaynta ay maanta ku leeyihiin Yahuuddu adduunka, aynu marka hore milicsanno taariikh kooban oo ku aadan isir ahaan meesha ay ka soo jeedaan. waxaa loo tiriyaa in Yahuuddu ay ka soo jeedaan isirka loo yaqaano Kancaaniyiinta, wuxuuna u noqdaa asalkoodu oo ay ka farcameen Nebi Ibraahim calayhi salaam, oo uu ku xigo inankiisii Isxaaq, oo uu ku sii xigo isagana inankiisii Yacquub, oo sidoo kale la oran jiray Israa'iil. magaca Israa'iil wuxuu ka kooban yahay 2 micne oo la isku lifaaqay, kaasi oo ah magaca koobaad Israa oo loola jeedo addoon, iyo iil oo loola jeedo Ilaahay. marka la isku lifaaqana noqonaysa addoonkii Alleh. magaca Yahuud waxaa loola jeedaa dadkii raacay oo rumeeyey Nebi Muuse calayhi salaam, rumeeyeyna diinta Yahuudiyadda. magaca Yahuudina ma ahan cirqi iyo isir, balse waxay noqonaysaa diin, sida marka aad leedahay islaam oo kale. wuxuuna xilligaasi Alle u soo diray Nebi Muuse reer bani Israa'iil oo xilligaasi ku sugnaa dalka Masar, una gumaysan jiray Fircawn. waxayna ka koobnaayeen 12 lafood ama qabaa'il oo ka farcamay 12kii walaal ee la dhashay Nebi Yuusuf. qaabka ay ku yimaadeen Masar, sidoo kalena ay ku degeen dhulkaasi, waxaynu uga hadli doonaa muuqaal kale. balse diinta Yahuudiyadda ee ay haystaan Yahuuddu ayaa ah diinta tobnaad ee ugu badan adduunka maanta. ma ahan diin ay faafiyaan sida aynu inagu u faafinno diinta Islaamka, balse waa diin ku kooban dadka haysta. dabcanna waxay ka mid tahay diimaha uu Alle soo dejiyey ee la beddelay ama lagu sameeyey taxriifka, iyada iyo diinta Kiristanka. sidoo kale Yahuudda ayaa aaminsan inay yihiin dadkii uu Alle doortay ama uu Alle jecel yahay, waxayna u arkaan dhammaan inta ka soo hartay oo aynu ku jirno adiga iyo aniguba daawade inaynu u nahay addoomo uu Alle u abuuray si ay iyaga ugu shaqeeyaan uguna adeegaan. saamaynta Yahuuddu leeyihiin maanta. arrinta aynu dhammaantiin wada ogsoonnahay ayaa ah in Maraykanku uu yahay dalka ugu dhaqaalaha iyo awoodda badan adduunkan aynu ku noolnahay maanta. dal saldhig u ah shirkadaha wax soo saar ee ugu tunka weyn adduunka, sidoo kale ciidamadiisu ay ku fidsan yihiin dhammaan dalalka adduunka, dal curiya colaadaha, kana macaasha dagaalada. haddaba dalkan awoodda leh ee la dhaho in qofkii hoggaankiisa haya uu hayo hoggaanka adduunka oo dhan, waxaa maamula oo awoodda ugu sarraysa ku leh Yahuudda. waxaana ka jira ururo ay ku leeyihiin Yahuuddu, kuwaasi oo jaangooya siyaasadda dalkaasi. waxaana ugu caansan ururka EIPAC ee ay leeyihiin kuna midaysan yihiin badanaa Yahuudda degta Maraykanka. si aad u qiyaastid awoodda aan ka hadlayno ee ay Yahuuddu ku leeyihiin Maraykanka, waxaa kugu filan daawade inaad ogaatid in 80% hoggaanka ugu sarreeya dalkaasi iyo sidoo kale maamulayaasha shirkadaha ugu waaweyn dalkaasi ay yihiin Yahuud, halka 20% dadka ugu lacagta badan Maraykanka ay yihiin dad isirkoodu yahay Yahuud. waxaana la sheegaa in lacagta Maraykanka badankeed ay gacanta ugu jirto 10% ka mid ah dadka Maraykanka. 10%kaasi kalabar ka mid ah waxay ku abtirsadaan Yahuud, taasoo micnaheedu yahay in dhaqaalaha dalkaasi badankiisu uu gacanta ugu jiro ku dhowaad 5% ka mid ah Yahuudda degta dalkaasi Maraykanka, oo ah qowmiyadaha ugu tirada yar ee ku nool dalka Maraykanka.
waxayna gaarsiisan tahay awooddoodu in ururka EPAC ee ay leeyihiin Yahuuddu lagu tilmaamo inuu yahay kan doorto madaxweynaha hogaamiya dalkaasi Maraykanka uusanna ku guulaysan hoggaanka dalkaasi madaxweyne aysan iyagu raali ka ahayn kuma koobna awooddooda dhaqaale iyo siyaasadeed Maraykanka oo keliya balse sidoo kale waxay ka yihiin Yurub iyo Aasiya dadka ugu hodansan uguna dhaqaalaha badan waxaana lagu qiyaasaa in 65 Yahuudi oo keliya oo ka mid ah Yahuudda ay yihiin kuwa ay gacanta ugu jirto 10% dhaqaalaha adduunka oo dhan. haddii aynu jaleecno waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay gacanta ku hayaanna waxaynu arkaynaa in Yahuuddu ay yihiin kuwa si buuxda gacanta ugu haya tiknoolajiyada iyo warbaahinta adduunka sida shirkadda Google ee leh YouTube-ka aad iga daawanaysid. haddii aad iga daawanaysid Facebook-na ogow in isagana ay leeyihiin Yahuuddu, sidoo kale Twitter, Snapchat iyo kuwo kaloo badan. halka warbaahinta ugu muhiimsan ee ay Yahuuddu maamulaan ama leeyihiinna ay kala yihiin warbaahinta Fox News, CNN, ABC, shirkadaha ugu badan ee sameeya filimaanta Hollywood-ka iyo sidoo kale wargeysyada Washington Post iyo New York Times. halka shabakadda BBC ee aynu dhammaantiin wada garanayno ay ka mid tahay warbaahinada ay Yahuuddu maamulaan. sidoo kalena raaci wakaaladda wararka ee Reuters oo uu yagleelay Yahuudigii la oran jiray Julius Paul Reuter. sidoo kale waxay leeyihiin shabakadda NBC. haddii aynu milicsanno dhanka tiknoolajiyadana Yahuuddu waxay leeyihiin shirkadaha ugu waaweyn ee sameeya tiknoolajiyada adduunka sida shirkadda Intel ee uu leeyahay Yahuudiga la yiraahdo Andrew Grove, halka shirkadda Oracle-na uu leeyahay Yahuudiga la yiraahdo Larry Ellison. sidoo kale shirkadda Dell ee samaysa kombiyuutarada oo uu leeyahay Yahuudiga la yiraahdo Michael Dell, iyo shirkadda Google oo uu ka mid yahay ragga leh Sergey Brin oo isna ah Yahuudi. shirkadaha kale ee ay leeyihiin raggani ayaa kala ah shirkadda cuntooyinka fudud ee McDonald's, sidoo kale Starbucks oo uu leeyahay Yahuudiga la yiraahdo Howard, iyo shirkadda Coca-Cola, halka shirkadda Nestle ee soo saarta cuntooyinkana ay Yahuuddu leeyihiin kala barsaamiyadeeda. haddii aan si kale u dhahno daawade, dhammaan shirkadaha ugu waaweyn ee ay ku tirsan tahay nolosheennu maanta, haddii ay ahaan lahayd dharka aynu gashanno, cuntooyinka aynu cunno, tiknoolajiyada aynu adeegsanno iyo shaaha ama kafayga aynu cabno, dhammaantood waxaa iska leh ama leh saamiyadooda ugu badan Yahuud, taasoo ku tusaysa heerka ay gaarsiisan yihiin dadkan aan ka badnayn 12 milyan. waxaana kuugu filan inaad ogaatid awooddooda in qoysas Yahuud ku abtirsada ay yihiin kuwa iska leh saamiyada ugu badan bangiga federaaliga ah ee dalka Maraykanka oo ah bangiga keliya adduunka oo dhan ee awoodda u leh inuu daabaco lacagta dollarka ah inta uu rabo iyo goorta uu doono. haddii aynu ogaanay inta ay gaarsiisan tahay awooddoodu, su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah xagee u ah saldhig ama deegaan dadkan. sida aynu wada ogsoonnahay dhulka maanta loo yaqaano Israa'iil ee ay Yahuuddu xoogga uga qabsadeen Falastiiniyiinta ayaa ah dhulka ay dhammaantood aaminsan yihiin inuu yahay dalkooda iyo meesha loo ballanqaaday inay ku noolaanayaan iyagoo u yaqaana dhulkii ballanta. ama haddii aynu dhahno waxayna Yahuuddu awood u yeesheen iyaga oo dhexda uga jira dadyow carbeed inay yagleeshaan dawlad yar oo si tartiib tartiib ah isku ballaarisay ilaa ay gaartay maanta heer ay ku dhowaato inay la wareegto Falastiin oo dhan. waxayna aaminsan yihiin Yahuuddu caqiido odhanaysa inuu Ilaahay u ballanqaaday inay yeelanayaan dhammaan inta u dhaxaysa labada webi ee Niil iyo Furaat. ciidan ahaan waxaa kuugu filan inaad ogaatid awooddeeda inay leedahay madaxyo nukliyeer oo aan la garanayn tiradooda, mana jirto cid awood u leh inay dabagal ku samayso. sidoo kale waa dalka keliya ee uu Maraykanku u ogol yahay inay adeegsadaan hubabkooda casriga ah sida diyaaradaha dagaal ee ugu casrisan dalka Maraykanka. mamnuucna ay tahay in habeen ay ku hoydaan dhul shisheeye. marka laga yimaado Israa'iil, cabsi ay ka qabaan in la ogaado tiknoolajiyada ay ka samaysan yihiin. sidoo kale arrinta kale ee u yeelaysa awood gumaystahan ayaa ah in dhammaan ganacsatada waaweyn ee Yahuudda ku abtirsata ee aynu soo sheegnay inay dhaqaalaha adduunka gacanta ku hayaan ay dhammaantood maalgashiyo iyo deeqo siiyaan dawladooda si ay u xaqiijiso yoolkooda ah inay gacanta ku dhigaan adduunka oo dhan. waxaa laga yaabaa daawade in dhayaalsi iyo mala-awaal aad u qaadatid marka aynu ka hadlayno awoodda ay leeyihiin ummaddani, laakiin xaqiiqda ayaa odhanaysa in Yahuuddu si ay u xaqiijiyaan yoolkooda ah inay yagleeshaan dawladdii uu Alle u ballanqaaday waa sida ay aaminsan yihiin inay u boqoleen gacan ku dhigidda adduunka oo dhan, adiguna aad ka mid tahay. haddana sidaasi oo ay tahay, waxaa hubaal ah in si walba oo aynu ugu aragno inay yihiin kuwo midaysan oo leh yool cad, ay haddana xaqiiqdu tahay inay isdiidan yihiin oo ay qulubtoodu kala fog tahay sida uu Alle inoogu sheegay Qur-aanka. intaasi
ayaynu ku soo gebagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad nagu soo biirtid oo aad ka mid noqotid bahweynta aan ku bahownay madashan. sidoo kalena haddii uu ku qanciyo muuqaalku ha ilaawin inaad leeg noo saartid. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.